Please welcome our next contestant, Mohammed Quatani, The Power of Words. The Power of Words, Mohammed Quatani. maxay dhammaantiin ma waxaad u malaynaysaan in sigaar cabiddu dhimasho keento aan idiin sheego wax kale ma ogtihiin in dadka macaanka u dhinta ay 3 jibaar ka badan yihiin kuwa sigaarka u dhinta balse haddii aan shukulaato la soo bixi lahaa qofna wax muusan oran lahayn ma ogtihiin sababta ugu weyn ee keenta kansarka sababada aysan ahayn sigaar balse ay tahay hidde-sidayaashaada waxaad sigaar cabi kartaa sannado badan waxna aysan kugu dhicin dagaalkan lagula jiro sigaarka waa mid lagu xakameynayo beerista tubaakada mudane guddoomiyaha tartanka xubnaha martiqaadayaasha iyo martida sharafta leh waxaan u adeegsaday doodaydan inkastoo aan hadda ka sameeyey maskaxdayda koox saaxiibaday ah natiijaduna waxa ay noqotay tan ka mida waxa ay rumaysteen wixii aanay 2 ka mid ahna waxa ayba bilaabeen sigaar cabidda ereyada markii si sax loo yiraahdo oo si habboon loo dhigo waxay bedeli karaan fikirka qof waxay bedeli karaan aaminsanaanta qof waxaad awood u leedahay in aad qof nolosha ka dhacay soo kiciso oo aad ka dhigto qof guulaysta ama aad farxadiisa burburiso adigoo adeegsanaya kaliya ereyadaada ma muuqataa wax aad u fiican in la rumaysto hal erey oo si sax ah loo doorto ayaa ka dhigi kara farqiga u dhexeeya in fariintaada la aqbalo ama la diido waxaad haysataa waxa aad qiimo badan oo aad dhahdo laakiin haddii aad ereyo qaldan isticmaasho khalaas waxaa ii jooga wiil 4 jira wuxuu lahaa caado xun oo ah inuu gidaarada ku qoro qalimaanta midab kale habeenada ka mid ah waxaan u soo galay qolkiis waxa uu si xamaasad leh ugu qoray gidaarka waxaan ku yiri ma toqon baata mar dambe ha samayn bal ka waran wixii dhacay wuu sii waday qofna ma jecla in la handado qofna ma jecla in la cabsi geliyo sharaftiisu ma ogolaanayso wuxuu sii waday inuu ku qoro gidaarka si uu ii dhibo toddobaad kadib waxaan mar kale u soo galay qolkiis mar kale waa uu qoraya hataa markaan weliba sidaaba ii soo fiirinaya waan u soo dhaqaaqay waxaan ku iri kaale fadlan ha samayntaas mar dambe waxaa tahay nin weyn isna weligiis mar dambe ma samayn sabab wuxuu rabay in la arko inuu yahay wiil weyn miyaad weligiin isweydiiseen sababta ay dadku uga warwarin isbeddelka cimilada inkastoo ay tahay dhibaato halis ah oo na wada dili karta haddana marka aad guriga tagto oo aad TV-ga shido waxaad arkaysaa saynisyahan sidan u hadlaya It goes something like this. Ladies and gentlemen, as you can see from the graphs here, the statistics for 2014, it shows the water level is rising. This table shows that the monodioxide level on the 3rd ozone layer is in a very alarming position. frinti ma gaarin dadweynaha laakiin waxa ugu daran haddii aad tahay qof dadku ku daydaan wax kasta oo aad tidhaahdo waa la rumaysanaya wax kasta oo aad sheegtana waxaa loo qaadanaya xaqiiqo
My friend Nasser. saaxiibkii naasir He loved aad ayuu u jeclaa aabbihiis idealized his father. wuxuuna rabay inuu farxad geliyo laakiin aabbihiis ma ahayn qof sidaa u fudud But his father was the kind sanad walba waxa uu isku dayi jiray inuu farxad geliyo laakiin aabbihiis mar walba wuxuu oran jiray sanadkii ugu horreeyey ee jaamacadda naasir waxa uu keenay darajooyin sare wuxuu is yidhi tani waa fursaddeed oo waxa ugu fiican ee aabbahay aan ku farxad geli karo wuxuu taleefon u diray aabbihiis he called his dad. aabbo darajooyin sare ayaan keenay straight as miigu faanaysa fadlan ii sheeg inaad igu faraxsan tahay idhegaysa wiilkaygii I'll have to pay. waa mashquulsanahay oon ku soo wici doonaa keliya hal jumlad waan mashquulsanahay ayaa ahaa wixii dadaalkiisii ka dhigay hal bacaad lagu lisay laba eray oo keliya ayaa burburisay qalbigii naasir markaas ayuu bilaabay cabitaanka khamriga isticmaalka daroogada When drugs. iyo inuu la socdo dad xun Wrong crowd. dadka markii ay weydiiyeen naasir maxaa kugu dhacay Why are you throwing maxaad noloshaada u burburinaysaa wuxuu yidhi if the one person haddii qofka keliya aan adduunka ugu jeclaa uusan daryeel yahayn maxaan u noolahay habeen habeenada ka mid ah waxaa soo galay wicitaan degdeg ah Nasser's and the naasir wuu miyir beelay daroogo ayuu aad u isticmaalay waxaan u cararay isbitaalka waxaan arkay isaga oo sariir saaran mashiinadii badbaadinayna ay samaynayaan codkan beep, beep, beep. dhakhaatiirta ayaa isku dayaysa inay soo celiyaan Clear! 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 laakiin It's clear. clear hal eray Single word. ayaa badbaadin lahaa noloshiisa This life. ereyadu waxay leeyihiin awood Words. ereyadu waa awood ereyadu waxay noqon karaan xoggaaga iyo awooddaada waxaad beddeli kartaa nolosha qof Inspire a nation. waxaad dhiirin geli kartaa qarankaaga waxaadna adduunka ka dhigi kartaa meel qurux badan miyaynan ahayn taasi waxaynu rabno dhammaanteen miyaanay taasi ahayn sababta aan halkan u joogno afkaagu waxa uu tufi karaa sunta ugu halista badan ama waxa uu bogsiin karaa naf jaban A broken soul. mudanayaal iyo marweyn Gentlemen, taas ha noqoto be yoolkeen our goal. Count us, sir.